dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay qorsheynaysaa in dib loo furo dugsiga tababarka ciidamada Qorilow oo ka mid ahaa dugsigii lagu tababari jiray ciidamada qaranka ee Soomaaliya balse ku burburay dagaaladii sokeeye intii ay jireen. waxaa jiray qorshe ay sameeyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiil ka socota ADMIS iyo Britain oo booqday deegaankaasi si ay qiimeyn ugu sameeyaan goobtaasi iyo qorshaha dhismaha ee la doonayay in dib loogu furo xaruntaasi oo faa'iido u yeelan doonta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee qaarkood dibadda lagu tababaro qaarkoodna gudaha Soomaaliya lagu tababari doono. hay'adda sirdoonka ee nabad sugidda qaranka NISA ayaa waxay uga digtay ganacsatada inay ka fogaadaan marnaba aanay u hoggaansamin amarada qawaariijta ku doonayaan inay ku boobaan hantidooda kadibna hantidaasi loogu isticmaalo gumaadka shacabkan waxba galabsan. NISA waxay ka warhaysaa in qawaariijta ay isku dayayaan inay u yeeraan ganacsatada gobolka Shabeellaha Hoose. waxaa sidoo kale hay'adda nabad sugidda ay shacabka Soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan xarumaha qawaariijta ama goobaha ay ka howlgalaan maadaama ay bartilmaameed u yihiin howlgallada socda ciidamada qaranka ay wadaan. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay guulo hor leh ka soo gaareen dagaalka ay kula jiraan argagixisada. howlgal ciidamada SNA ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka Mudug waxa ay ku dileen ku dhawaad 120 ka tirsan qawaariijta iyadoo tiro kale oo badan halkaas lagu dhaawacay. waxaa kaloo ciidamada u suura gashay inay la wareegaan deegaano hor leh oo ay ka xoreeyaan cadowga. ciidanka qalabka sida iyo saaxiibada caalamiga ayaa iyana howlgal kale waxa ay ku dileen 18 qawaariij deegaanka Sabiid ee gobolka Shabeellaha Hoose ka tirsan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. qawaariijtan waxay qayb ka ahaayeen koox ka tirsan qawaariijta oo markii hore ku jabay weerar ay doonayeen inay ku qaadaan xero ciidamada SNA ay ku leeyihiin deegaanka Sabiid. dhanka kale ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgal waxa ay ka fuliyeen gobolka Mudug waxayna gacanta ku soo dhigeen xubin sare oo qawaariijta ka mid ah oo magaciisa la yiraahdo Salmaan Daadir oo dhanka kale madax ka ahaa qaraxyada lagu dhibaateeyo shacabka. dagaalqabaha ayaa la qabtay xilli uu gaari ku waday waxyaabaha qarxa iyo dawooyin. isla howlgallada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo oo kaashanaya daraawiishta Galmudug waxay qawaariijta kala wareegeen deegaano ku yaala dowlad goboleedka Galmudug. howlgalkaasi waxaa ciidamada SNA ay ku dileen ku dhawaad 50 xubnood oo ka tirsan qawaariijta arxanka daran ee Al-Shabaab. dhinaca kalena ciidamada qalabka sida waxa ay fashileen weerar qawaariijtu ay ku soo qaadeen deegaano ka mid ah gobolka Jubbada Hoose oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. weerarkaasi waxaa qawaariijta looga dilay ilaa iyo 10 qawaariij ah. guud ahaan howlgallada ka dhacay waddanka toddobaadkii la soo dhaafay waxaa qawaariijta looga dilay in ka badan 200 qof waxaana xusid mudan in howlgalladan ay ka dhacayeen ilaa iyo 4 dowlad goboleed sida Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo waliba Galmudug. dhinaca ajeendooyinka marka laga soo tago amniga waxaa ka mid ah in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu soo gabagabeeyay safar uu dhawaan ku tagay dalka Talyaaniga halkaas oo kulamo kula yeeshay madaxda dalkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Talyaaniga ra'iisul wasaaraha Talyaaniga. waxaana madaxweynaha wafdigiisa intii halkaas ay joogeen ay la sameeyeen wada hadallo wasaarado iyo hay'ado badan oo dalka Talyaaniga ka mid ah. waxaa kaloo madaxweynuhu ka qayb galay shirka IFAD oo ah urur caalami ah oo dhinaca cuntada qaabilsan kaas oo shalay lagu soo gabagabeeyay dalkaas Talyaaniga. Soomaaliya looga cafiyay deemihii lagu lahaa ee xubinimada. dhinaca duulimaadyada waxaa dhawaan shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo laga leeyahay dalka Istaga Imaaraadka Carabta ay bilaabi doontaa duulimaad maalinle toos ah oo Muqdisho ah ilaa iyo Dubai. waxaa duulimaadyadaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yiraahdo 9 bisha soo socota ee March waxaana la rajaynayaa in 3 bilood kadib la sii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale iyo iskaashiga labada dal. ugu dambeynna hay'adda isgaarsiinta qaranka ayaa soo dhaweysay tallaabada iyo shirkadaha isgaarsiinta ku hirgeliyeen heshiiskii isku furista adeega qadka telefoonka ay bixiyaan. waxaana heshiiskaasi oo la kala saxiixday dhammaadkii 2022 hirgeliyay qayb ahaan shirkadaha kale ah Hormuud, Somtel, Amtel, Somlink, Golis iyo Telsom. iswixitaankani waxaa damaanad qaaday hirgelintiisa hay'adda isgaarsiinta qaranka iyadoo fulinaysa dhammaan shuruucda iyo xeer nidaamiyaasha quseeya arrintan. ujeedka laga leeyahay adeegan waa sidii shacabka loogu fududeyn lahaa adeegyada isgaarsiinta dalka loona dhiirigelin lahaa tartan ku dhisan adeeg iyo qancinta macaamiisha.